Mareykanka ayaa wadamada Norway, Britain, Canada, Australia iyo New Zealand ku cambaareeyay go'aanka ay dalalkooda uga mamnuuceen wasiirada maaliyadda iyo kan amniga dalkaasi Israel. Xogayaha arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka, Marco Rubio, ayaa ka dalbaday Norway iyo wadamadan kale inay ka laabtaan go'aankan ay cunaqabataynta dhanka safarka ah ku soo rogeen labadan wasiir ee xagjirka ah ee reer Israel. Rubio ayaa sheegay in cunaqabatayntani ay ka hor imaanayso dadaalada uu Mareykanku ku doonayo in lagu gaaro xabad joojin waarta oo ka dhaca marinka Gaza, si taalamidana lagu soo wada daayo dhammaan lahaystayaasha Israel ee ay gacanta ku hayaan reer Falastiin, si taalamidana si dhammaystiran loo soo afjaro dagaalka muddada dheer ka soconaya marinka Gaza. Mareykanka ayaa ku baaqay in cunaqabatayntani laga qaado wasiiradan reer Israel, isaga oo sheegay in ay markastaba garab taagan yihiin dalkaasi Israel oo ay xulafo yihiin. Afhayeen lagu magacaabo Tim Bruce oo u hadlayay waaxda arrimaha dibadda dalkaasi Mareykanka ayaa ku tilmaamay cunaqabatayntan ka dhanka ah labadan wasiir in ay tahay mid aan waxba soo kordhinaynin. Waxa uuna intaa ku daray in dambiilayaasha dhabta ah ay yihiin ururka Xamaas ee ka dagaalamaya marinka Gaza. Wadamada Norway, Britain, Canada, Australia iyo New Zealand ayaa ku dhawaaqay in ay dalalkooda ka mamnuuceen ayna hadda wixii ka dambeeya cagta soo dhigi karin labadan wasiir ee xagjirinta reer Israel ah. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Norway, Espen Eide, ayaa sheegay in wasiirka maaliyadda Smotrich iyo wasiirka amniga Ben Gvir ee dalkaasi Israel ay muddo dheer ku dhawaaqayeen ama ay ku hadaaqayeen erayo dhiirigelinayo dhibaataynta iyo sidoo kale barakicinta dadkaasi reer Falastiin. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo Cabdulaahi Shiine.